negative yiri tacabkiisi helo waxaanu tamarsanaa saami loo wada tartamay alloonoo tiirisee u taagnay calankayaga rabbow tabantaabiyo adigu noo taakule alloonoo tiirisee u taagnay calankayaga rabbow tabantaabiyo adigu noo taakule Somaliland talada tabayu adeegsato tabaalooyinkii horiyo tusi waa lagaga baxay Somaliland talada tabayu adeegsato tabaalooyinkii horiyo tusi waa lagaga baxay allow noo tiirisee taagnay calankayaga rabbow tabantaabiyo adigu noo taakule allow noo tiirisee taagnay calankayaga rabbow tabantaabiyo adigu noo taakule kulanti wacan oo xiiso leh dhamaantiin baa khiyarta hawada naga daawanaysa ay ku soo dhawaada barnaamij khaas ah waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan wadanka Imaaraadka Carabta halkaas oo aan doonayna waraysi dhinacyo badan taaban inaan kaga qaado baashe ambassador baashe Cawil Cumar oo ah wakiilka ama ambassadorka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta ambassador baashe ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay oo anagu mahad celinaya sida wanaagsan ee uu noogu soo dhaweeyay wadanka Imaaraadka halkaas oo aad ogtihiin wadanka Imaaraadka Carabta iyo dalka Soomaaliland in ay heshiisyo ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca nabadgelyada ay wada galeen waxaan leeyahay ambassador baashe Cawil ku soo dhaweey telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dalmar aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo baxda shaqaalaha TV-ga qaranka waxaan farxad weyn oo ah inaad timaadeen magaalada Dubai gaar ahaan xafiiska Somaliland ee ku leedahay dalka Imaaraadka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa soo dhawaada ambassador waxaan ognahay inaad tahay ambassadorka ama wakiilka Somaliland ay ku leedahay wadanka Imaaraadka Carabta bal haddaba dad badan ayaan garanaynin shaqada ambassadorka ama wakiilka wadan aan runtii la aqoonsanayn bal xafiiskan aad maanta aynu fadhinay aadka u quruxda badan oo markii aan ku soo wareegnay runtii aan la yaabnay safaaradda Somaliland ay ku leedahay wadanka Imaaraadka oo aad u qurux badan xafiiskana intee buu furnaa si adiga ambassador ahaan shaqadaadu maxay tahay horta haddaan in yar kaaga waramo xafiiskan waxaa la furay aniga madaxweynuhu ii magacaabay bishii June 3 sanadkii 2015 waqtigaa uu ii magacaabay sidaad xustay jamhuuriyadda Somaliland xafiis kumaynu lahayn dalka Imaaraadka marka waxaa muddo nagu qaadatay kolley intii aanu processkii xafiiska furitaankiisii iyo shuruucdiisii iyo waraaqihiisii aan raadinay waxaana si official xafiiska loo furay muddo 6 bilood kadib waqtigaas soo ahayd bishii January 2016 muddada uu imika xafiisku furnaa oo aad oran karto waxay ka yartahay muddo 2 sano ah waxa uu xafiiskii aad isugu taxaluujinayay inuu ka shaqeeyo sidii uu dardargelin lahaa hawlaha loo xilsaaray ee madaxweynuhu u xilsaaray inuu xafiiskan ka shaqeeyo hawlahaasi oo runtii u kala baxaa dhowr qodob sideedaba marka safaarad la sheegayo ama shaqada safaaradda laga hadlayo waxa ay tahay waa wajigii dalka waa halka marka la tago wadan kasta ay ka dhaleecan karto meesha aad tegaysaa say tahay say u eg tahay maxaa laga helayaa maxaa laga faa'iidayaa maxay dadkeedu aaminsan yihiin marka waxaad odhan kartaa waxa ay tahay afkii iyo indhihii wadanka soo wakiishay marka waxaa muhiima marka aad dal tagto in aad soo bandhigto wadankaaga ood usoo bandhigto dadka aad u tegayso adigoo marka ka tusiya mar walba waxa wanaagsan isla markaana iska ilaalinaya inaad maaragtay muujiso ama aad ka tirtirto dadkaasi wixii khaladaad wadanka laga aaminsanaa dabcan inagu wadan Somaliland oo aan la ictiraafsanayn baynu nahay sideedaba khaladaad badan bay dadku ka aaminsan yihiin Somaliland oo ah dal Soomaaliya kamid ah oo wali dagaal ka socdaan oo mushkilad ku jiraan marka marar badan adigoo shaqadaadii safaaradeed wata waxa muhiim ah
inaad adoo dhinacii kalena sharaxaya bal inaad horta qofkaa fikir ka siiso Somaliland waxay tahay xaggee ka timid taariikhdeedii waxa imika ay doonayso iyo mustaqbalkeedii hore waxay socoto marka xafiiska Somaliland generally markaad eegto shaqadiisu waxa ay kala baxdaa dhowr qodob marka hore waxa weeyaan waxa runtii aan xooga saarnay dalka Imaaraadka aynu ahayn dal taariikh fara badan inaga dhaxaysay cilaaqaad fara badan inaga dhaxayo boqolaal sano soo socotay in aanu bal xagga humanitarianka ama xaggii horumarka developmentka taageerada ahayd aynu ka wada shaqeyno oo weliba taakuleen fara badan inaga siiyaan dal aad u taakuleeyay bay ka mid ahayd Somaliland iyo Soomaaliya berigii ahaydba oo mashaariic fara badan siiyay si aad la socoto wadada Berbera iyo isku xidha Sheekh waxaa dhisay Imaaraadka oo wadada Sheekh Zayed la yiraahdo dadku in badan ma yaqaanaan laakiin dawladda Imaaraadka hirgelisay marka dal xitaa markii Soomaaliya ka mid ahayn taakuleen fara badan inay siin jiray bay ka mid ahayd dalka Imaaraadku intii ka dambeysana imika aynu la soo noqonay xornimadeena runtii waxaad oran kartaa cilaaqaadkeenu wuxuu ku koobnaa xagga humanitarian oo mashaariicda yaryar samafalka la bixiyo ayuu ku koobnaa marka kulli anagu markaan xafiiskan furnay waxaanu sii dardargelinay inaynu xagga mashaariicda la xoojiyo waxa runtii aad loo dhacday matiraba imika 3 jeer in ka badan inay geeyeen mashaariic samafal oo raashin iyo badan xaalad imikadan laftirkeedana waxa ay wadaan mashaariicda inay sii dardargeliyaan waxay dhawaan insha Allah bilaabi doonaan mashaariic 20 ceela oo dhulkan abaaraha aadka u saameeyay in laga sameeyo waxa kale insha Allah keeni doonaan raashin iyaguna lagu taakuleeyo dadka waxa soo dhan waxay runtii tusaysaa taariikhda soo jireenka inuu wada leenahay dhanka kale waxa xafiisku runtii xoog saaray in markaad eegto ganacsiga waad ogtahay oo saan doo sheegay taariikh fara badan bay naga dhaxaysay inaga Imaaraadka taariikhdaasi markaa waxay xusaysaa in dadka waxa ay wadaagtaan naga dhaxeeya xooga la saaro oo la geliyo marka mashaariic ganacsi oo ay ka mid ahayd iminka mashruucii weynaa imka DP World ee inoogu leeyahay investmentka mashruucan kale iminka iyaguna shirkadahoodii xagga duulimaadka oo Fly Dubai iyaduna runtii bilowday iminka muddadii iminka xafiisku joogayna shaqeynaysay iminkana 7 cisho wada flightskeeda waxa kale iyaguna jira shirkado kale oo iyaguna ku soo daba jira oo iminka aan wali soo ifbixin laakiin eeganaya DP World iyo sida ay hawsheeda u bilowdo oo marka iyaga laftirkoodu socda dhanka saddexaadna waxa weeyaan dhanka community-ga oo iyagana la shaqeyno oo inaan baahiyaha community-gu leeyihiin ay dalkan ka haysta iyagana aan ka caawino oo inta badan u badan shaqo la'aan ama iyagoo maaragtay waxyaabahan kale serviceska u baahan yihiin iyo qaybta ugu dambaysa oo xaggii consulatka serviceska fiisiyaasha oo dadka tegaya dalkii iyagana fiisiyaashii waxay u baahan yihiin ama macluumaad kale la siiyo marka adigu markaad isku soo koobto 4 qodob baad oran kartaa runtii xafiiska shaqadiisa runtii si wanaagsan oo aad u qurux badan baad u sharaxday Master Ambassador Baashe haddaba runtii waxa aan jecelahay inaan ka wareysto wadankan Imaaraadka ee aad ambassadorka Somaliland wakiilkeeda aad ka tahay waxa ay ku tala jiraan in ay amaba ay la galeen heshiisyo aad iyo aad u ballaaran oo dhinaca nabadgelyada xagga security-ka iyo xagga dhaqaalaha hadaynu carabkaba si fiican ugu dhufano DP World iyo saldhigyada military ee ay dhinaca ammaanka haddaba bal waxaad sharaxaad naga siisaa maxay daaran yihiin heshiisyadaas ay Somaliland iyo Imaaraadkooda galeen dalmar طبعا sabab xustay Somaliland waxay dhawaan heshiis la saxaatay shirkadda DP World oo ay 80% leedahay Dubai government iyo heshiiskan imika dhawaan aynu filayno inay Somaliland la gasho shirkadda hay'adda Abu Dhabi Fund oo betelaysa UAE taasoo ay heshiisku gundigu yahay heshiis military oo dawladda Imaaraadka iyo Somaliland kala saxeexdeen طبعا marka dal laga hadlayo waxa weeyaan waxyaabaha ugu waaweyn ee umada xisayso waxa kamid ah waxa weeyaan horumarkeeda iyo stability-geedu ku xiran tahay waa inay hesho dhaqaale ku filan inagu dal soo kobcayaynu nahay dal waxaynu nahay inta badan dhaqaalihiisu ku dhisan yahay dhoofinta xoolaha
de waanuna arkaynaa dhoofinta xoolahu dhibaatadeeda inay naga haysta imika abaaraha aynu aragnaa imika dhibaatadii kasoo gaadhay xoolaheena challengeski imika sacuudigii naga xidhay xoolihii iyo mushkiladihii nagu keentay baynu arkaynaa waxyaabahaasi waxa ay markaa saameyn ku yeelanaysaa bulshadii iyo dalkii aynu joognay oo markaa noqonayso haddaynaan haysan dhinacyo kale oo dhaqaalahayna aynu ku kabno oo dhaqaalaheenu isugu soo ururo uun xoolaha aynu sacuudiga u dhoofino xoolihii aynu dhoofinayna mushkiladihii cimilada isbedelaysay wadamadii aynu diraynay oo iyaguna helay meelo kaleo iyagana loogu soo diro taasoo sahashay marka ama adkaysayba inaynu xoolihii sida sahalkaa ku tegi jiray sacuudiga imika la adkeeyo mar walba oo la kiciyo maaragtay mustawihii xoolaha markii hore lagu qaadan jiray mid ka sarreeya la damco in la sameeyo taasoo inta badan aynaan dalahaanba adagtay inaynu ka baxno waxyaabaha in laga doonayo waxyaabahaasoo dhan waxa ay markaa keeneen oo sababeen inaynu markaa noqoto inaynu helo wax ka duwan wixii hore waxay taasi markaa iyadoo aynu ka duulano siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamed siilaayo in la sameeyo maxaa kale aynu dalkeena keeni karaynaa aynu ka shaqaysan karaynaa waddankeena ku horumari karaynaa waxaa taa markaa qeyb weyn ka noqotay oo la eegay waa dhalisay inaynu matalanba macdanaha ama shidaalkeena xoog saarno inaynu helo shirkado caalamiya oo inaga caawiya sidii shidaalka ula soo bixi lahayn taasi waxay sahlaysaa dalkan aynu joogno waad aragtaayoo imanka imaaraadka hadday tahay iyo sacuudiga hadday tahayba dee dal khayraadkiisu ku dhisan yahay weeyaan waxaa dhulka hoostiisa ku jira markii ay la soo baxayna dee kuwa nimcadaha samaystay marka horta dunidu waxa weeyaan mar walba marka aad wax doonayso dee inaad hesho waxyaabihii aad doonaysay inaad markaa horumarka ku gaadhsiinaya kale aan ka duwan imanka dee inagu xoolaha aynu keenno mooyaane waxyaabihii kale waddanka horumarinaya inaynu helo taasaa markaa runtii sababtay inuu madaxweynuhu sameeyo in la ballaariyo ilaha dhaqaalehaynu keenayno shidaalkii ayaa iminka socda oo aad ka warhaysaan oo shirkadihii iminka sameynaya seismic ah waad arkaysaa dad qaylinayo marka loo keeno maaragtay deegaano oo lahole anagu ma ogolin iyo waxaan ma ogolin laakiin waxaan fahamsanayn dadkaasi de marka shidaalka la soo saaro cidda ugu horeysa ka faa'iideysay horumarkeeda helaysa inay deegaanka tahay inuu deegaanku dhismayo dhinaca xaggii caafimaadka xaggii waxbarashada dhinac walba dadku horumarkii u dhismayo sidoo kale marka aynu inagu waxyaabaha ugu waaweyn aan haysanaa waxa weeyaan waa positionka aynu naalo dal ahaan oo ina caawinaya mandaqad baynu joognaa runtii isugu soo ururtay interestkeedii markaad eegto gacanka carbeed ee rarsiiga ah oo runtii aad dunidu u danaynayso waa ta sababtay iminka in Jabuuti intaasoo dal isugu yimaadaan oo ciidamadooda keenaan wax kalena maaha waddan walba ganacsigiisii iyo interestkiisii ayaa noqotay inuu ilshaayare la soo marnayo golf waxaada noqoto taasi waxay markaa keentay inay interestkii dunidu ku lahayd regionkaasi kor u kaco inagana ilaahay bayna dhigay halkaas marka mar hadduu ilaahay halkaa ina dhigay inuu ka faa'iidaysanay noqotay waxa ugu weyn inuu ka faa'iidaysanayna halkaa u soo gelinayna albaabkeeda ihina waa dekada berbera shanaad kaasana iminka aynu dal ahaan ictiraafka aynu raadinaynay waynu ka shaqaysanaynay itaalkeeda intii aynu lahayn inagu waynu gaarsiinay horumar waa la sameeyey meelo waa la ballaariyey laakiin wuxuu ku ekaa wixii itaalkeenu ahaa dekadaha caalamiga waxay u baahan yihiin waa inaga la socono 400 milyan 500 milyan dhaqaale ah bay u baahan yihiin si loo ballaariyo marka taasi waxay keentay inaynu u baahnay inaynu yeelno cid kale oo inoo timaado oo maalgashata waana ta sababtay markaa inagoo ku duulina siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamed siilaayo inaynu doonano shirkada inoo yimaado inoo maalgashada oo dalka maaragtay wax sameeya alxamdulilah madaxweynuhu wuxuu sameeyey guddidaasi 3 sano ayay shaqaynaysay oo hawsha waday inay maalgashiga shirkadaha keento markii 3 sano iminka ay socotayna 2 shirkadood bay berigii dambe isugu soo ururtay oo shirkadii Baloore iyo shirkadda leeyahay Mediterranean Shipping Line MSC markii iyadoo halka marayso oo guddidu baarida wado hawsha ayaa waxa aniga la magacaabay madaxweynuhu bishii saan shahro sheegay June 2015 safaaradda halkan Soomaaliland ku leedahay Imaaraadka waxaan dee noqotay inaan markaa aniga laftirkaygu la xiriiro
dalka imaaraadka shirkadahooda aan wareysano weydiino sababaha dee maaragtay iyaga laftirkoodu dabcan iyaguna markaa waxay daneynayeen oo iyaga laftirkoodu aada u daneynayeen inay qayb ka noqdaan waxaa kuwii markaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland kusoo casimay dalka imaaraadka bishii May waatii madaxweynuhu arkay madaxa dalkan Dubai ahna prime ministerka Sheikh Mohammed bin Rashid kulankoodana waxaa ka dhashay in labada dhinac ay government to government saxeexdaan MOU agreement kaas oo qayb ka mid ah ay ahayd horumarka dekedda Berbera dalka imaaraadku shirkadiisa DP World waxay markaa keentay qorshe ballaaran oo 442 milyan ah oo ku horumarinayso dekedda Berbera runtiina waxaad odhan kartaa mashruucaasi wuxuu ahaa mashruuc ugu ballaarnaa even ma aha 20 sano inuu jirnay laakiin intiis ilaa Soomaaliya inuu jirnay xornimada aynu qaadanay mashruucii ugu ballaarnaa ee maalgashi ee deegaankeena ka dhaca alxamdulillah maanta shirkadii way la wareegtay muddo sanad gudaheedna waxay ku bilaabaysaa insha Allah dhismihii kadibna waxaynu rajeynaynaa in dekedii noo ballaaratay inaynu helo oo markaa wax weyn ka bedesho nolosha dalka of course marka dee mashaariicda caynkaas oo kale ay gasho dalka waxaa imanaya marka in indhiha caalamku iskugu eegi jiray sidii hore ka bedelmado maanta Somaliland sidii loo eegi jiray iyo sida loo eegayo imika waa kala jaad qof walba oo la hadasho oo dunida u soo bandhigto Somaliland waxa uu ka wareysanaya mashruuca DP World xaguu maraya goormay la wareegtay waayo waxay noqotay bartilmaameed imika Somaliland iyadu u furtay albaab ay dunidu ka eegto hadii Somaliland imika DP World gashay oo ay inta ku aamintay dee malaha meesha waxba jira anaguna laftirkeyga waanu galeynaa marka taasi maalgashigaasi qayb waxa weeyaan dee qaybta dekedda ah sidaad xustay qayb labaad baa jirto iyaduna qaybta Berbera airportka ah military base ka ah military base keenuna dee seen la soconay inaga waxa dhisay oo u kala dambeeyay Ruushkii iyo Mareykankii laakiin muddadii imika 5 sano ugu dambeysay uu iska xidhnaa airportku dad badan baan maqlayo lahaa airport baa la bixinayaa ma loo gelin diidayay oo iyagu wax laga yaabaa maaragtay si kala xudhigayay dadkaasi markaad weydiiso tirada airportkeeni 5 sano u xidhnaa maanta mid shaqeynaya ma aha markiisii horena airport ciidan buu ahaayo in lagu sameeyay maxaa maanta ku jaban haddii la maalgashi inoo yimaada oo airportkiina la wareego maaragtay qaada inana airport cusub in loo dhiso wado cusub oo maaragtay wadada Berbera iyo Wajaale la dhiso waa maxay mushkilada ku jirta qof walba xukun wallahi arrinkaas hadii la helayo waa arrin wanaagsan marka inta badan waxa runtii arkaysaa dadka waxa lagu sheegayo dadka qaar ku sheekeynayaan maaragtay loo sheegayo iyo qofku markuu xaqiiqada ogaado waxa socda runtii inay kaafi kala dheeri tahay qof walba oranayo horumarka waa soo dhaweynaynaa waxa aynu rabnaana waa horumarkuna wuxuu ku jiraa in isfurfurnaan inaad dadka dunida u yeerato oo aad dhex gashaan oo maslaxadda dalkaasi leeyahay maslaxadda adigu leedahay isku waafajiso taasina waxay qayb ka tahay waxyaabaha marka safaarad ahaan annaga deena loo diray la yiraahdo maaragtay wadankii matal aan xoog saaro laakiin qaar baan ugu dhaliilo inta badan yiraahdaa dalkii baa iibinaysan horta safaaraddu wax kale ma samaysay waxay ka shaqeysaa inay iibgeyso wadankeeda horumarkiisa wixii lagu maalgashanayeen wadankaaga aad iibgeyso tiraahdo waxaasaan rabnaayna maalgashada ay safaaraddu ka shaqeeyaan marka nin wixii uu qabanayay shaqadiisa lagu caayay dabaan aragtay marka alxamdulillah wax maanta lagu farxo weeyaan waanu aad baad u mahadsantahay ambassador laba arrimood baad carabka ku dhufatay mid ah in dadka deegaanku marka la yiraahdo bensiin baa meesha laga baaraya ay si kale u arkaan muwaadiniin badan horta dadka ummadda Somaliland meel wala caalamka ay joogaan yani jacaylka wadankooda way ka siman yihiin iyo horumarkiisa ugu dambeyntii adigoo la hadlaya dadka walaalaha ah ee aad wakiilka u tahay ee aad maanta mataleyso dawladda Somaliland ee lagaba yaababa in ayba khayrka Somaliland u soo socdo aanayba si kale ay u arkaan adigoo si deeply ula hadlayo wadnahaagana ka soo go'aysa maxaad ku soo gabagabeynaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta dalmaraad iyo mahadsantihiin maanta noo timaadeen xafiiska waxaan runtii jaaliyada Somaliland ee gudaha iyo dibadba jooga u sheegaynaa runtii inay soo dhaweeyaan horumarka inay soo dhaweeyaan waxqabadka inay soo dhaweeyaan wadamada aynu walaalaha nahay ee iyagu markaa inaga doorbiday inay iyagoo haysta fursad wadamo badan
kale tegi karaya oo ay maalgashan karayaan ay yiraahdaan may maanta dadka halka jooga ee reer Somaliland ee 25 sano dadaalayay ee wax qabsaday ee doonaya inay horumar sameeyaan dadkaasina taakuleynayna inuu horumarka aanu doonaynaa inaan anaguna horumarkooda ay wax qabsadeen iyo horumarka ay sameynayaan inaan wax ku dirno maalgashano waxaan leenahay dadka shirkadaha ama ha noqdaan kuwa internationalka ah ama ha noqdaan dawladaha kale inoo imanaya dadka inoo imanaya wax la soo dhaweeyo wax wixii taakuleynay u baahan yihiin hala sameeyo horumarka iyo wanaaguna taas ku jira wadankana mushkiladahan faraha badan leeyna haysta haday noqonayso xagga abaaraha oo ilaahay inoo keenay laakiin iyada laftirkeedu kamid ah inay inagoo la soo bixi kari weynay kheyraadkeena dalka joogay inaan waxyaabaha soo dhan ku gaari kareyno marka aynu isku filaansho gaarno isku filaansho waxaan ku gaaraynaa inagoo hela maalgashi iyo dad inoo yimaada oo waxayna gashada marka waxaan leenahay marka horumar ku yimaado haday shirkado international noqoto iyo haday dawlado kale noqoto baa la soo dhaweeyo waxaan arkaynaa runtii dad iyagu marka kasto oo wanaag dhaco aad moodo inuu galo maaragtay ama markaa yeesha inay barnaamijyada caynkaas oo kale ka hor yimaadaan oo ku mudaharaadaan ama caayaan ama aflagaadeeyaan waxaan leenahay waxa laga waantoobo wanaag wuxuu ku jira waxa wanaagsan ee horumarka in la soo dhaweeyo sida aad sheegtayna mujtamaca reer Somaliland gidi ahaan waxaan qabnaa inay runtii horumarkan soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa sida fiican ay ula shaqeynayaan shirkadaha caalamka waxaan leenahay ilaahay insha Allah uu nagu guuleeyaa meesha aynu gaarayno insha Allah si wanaagsan aynu gaari doonaa dawladda Ambassador Baasha aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya inaad maanta runtii halkan nagu soo dhaweysay waa tahay daawadayaal halka waxay noogu dhamaaday waraysigii dheeraa aan ka qaaday Ambassador Baasha Cawil Cumar oo ah wakiilka ama ambassadorka Somaliland u jooga wadanka Imaaraadka Carabta waanigu awriye Dalmar iyo producerka barnaamijkan oo ah Ismaan Qays oo idin leh waxaan ku suganay magaalada Dubai halkaas oo aanu ka qayb galayno isla markaana dalka coverage uga sameynayno heshiisyada ballaaran ee dhexmaraya Imaaraadka Carabta iyo wadanka Somaliland Somaliland tashatee obayna badooda tamka ahay obay ku raxan taariikha ahay obay tuusan baanu leenahay obay Somaliland tashatee obay tirsanaan tuwaalibinay obay taamashlaan dabaaldeginay Rabbiyow na taakuliyay